markaad dareen qof u hayso wax kasta way kaa suurtoobaan waxaad arkaysaa qof dareen jacayl qof u hayo laakiin lagula kacayo wax kasta oo lidnimo ah waqti loo haynin teel laga qabanaynin maalinkii kumanaan jeer uu wacayo message iska dabadiraayo laakiin la fiirinayo laga tagaayo waxaasi waxaa la dhahaa dabacarar oo dulinimo ah waxaadna dabacararaysaa qof bini'aadam kula mid ah si kasta u jeclow laakiin waa inaad xuduud u yeeshaa heerka qofkaasi aad jeceshahay waan ogahay qaarkiin dareenka idinka tambadiya rabitaankiina ma xakameyn kartaan kaalay waxaan kugu soo dhaweynayaa 3 qodob oo kaa dhigaysa in lagu dabacararo halkaad dabacarari lahayd qofka ka heshay ma jeceshahay 3 qodob way ku caawinayaan waxaana filayaa haddii sida ay tahay u samayso inaad ku guulaysan doontid intaan ugu dagalin qodobadan waxaan kaa codsanayaa in muuqaalka la garayso la garayntu waxay naga caawinaysaa in muuqaalkeena meel fog uu gaaro dad badan ay arkaan qodobka koowaad waxa uu yahay garo qiimahaaga waxa la dhahaa lax kasta meesha isdhigto yaa lagu gooracaa haddaad isdhigto meel hooseysa oo aad garan weydo qiimahaaga waxa lagula dul soconayaa kabaha laakiin haddii aad qiimahaaga garato isma dhigaysid meel hooseysa dadku waxay sameeyaan waxay naga arkaan waxay nagu tijaabiyaan u shaqeeya way sii wadaan ilaa ay namoodo inaan doqon nahay oo aan dan naga dhicin markaad qof jeclaato qiimahaaga aad garanayso qofkaasi waxaad ka helaysaa ixtiraam iyo inuu ku ilaaliyo tusaale qofkaad wada socotaan haddii uu kaa arko inaad xuduud aan la dhaafi karin leedahay hadalkaaga uu cad yahay go'aankaaga marna aadan ka laabanaynin waxa uu ilaalinayaa xeerarkaasi kuu degsan ee aad dabaqayso waqtigaad balantaan kama soo dibdhacaayo haddii aad wacdo uu kugu soo celinayaa waxaasi oo dhan uu samaynayana adiga ayuu kaa arkay laakiin haddii ha socoto aad tahay aadna ha socoto yaa lagula dhaqmayaa waa muhiim inaad garato qiimahaaga sharaftaada aad dhowrtid waxa ku liidayo aad iska ilaalisid marna aadan qaadanin jacaylku waxa uu qiimeeyaa qofka naftiisa gartaa qiimeeyana naftiisa qodobka labaad waxa uu yahay naftaada ka shaqee marka aad tahay qof ku mashquulsan naftiisa kubaceeda iyo sare u qaadisteeda qof kasta waxa uu jeclaanaya inuu ku soo biiro noloshaada tusaale haddii aad tahay qof habaysan oo naftiisa waqti gelinayo jiimka aadayo isteelka iska saxaayo waqtigiisana ka faa'iidaysanayo shaqo jiim iyo waxbarasho u dhaxeeya waqti lagu cayaaro aanan haynin qofka aad jeceshay waxa uu ku arkayaa qof meelaysan noloshiisana ay qaabaysan tahay uu kaa helayaa sababta waxa aad tahay qof la isku halleyn karo qof naftiisa toosiyaya tahay oo disbilin leh laakiin ka waran haddii mar kasta lagu heli karo waqtigaaga maalayacni aad ku bixisid meel kasta aad taagan tahay cid ku qiimeynaysa ma jirto xitaa qofkaa ka hesho ma jeclaato dadka sare ee qiimaha leh ee laga dabacarara waxay ku mashquulsan yihiin naftooda waxay waqti geliyaan naftooda waxay ka shaqeeyaan siday u noqon lahayna qof muhiim ah oo bulshada dabaqa sare ka jooga qofkani aad jeceshay waqti u sameeyaad wada hadashaan waqti aad iswacdaan kabad badanin qofkan maanta dhan ha la hadlin ha isnacsiinin qofkan kaliya waxaad ku ekaysaa in maalinkii hal mar aad wada hadashaan habeenkiina laga sheekaysto kaliya hal kool in wixii soo dhacay maalinkii qof kasta uu ka sheekeeyo inta ay ku ekaato asbuucii hal mar aad kulantaan ama 2 mar intaas way idinku filan tahay laakiin haddii qofkani aad ka badbadato wicitaankaaga message-kaaga uu badan yahay saaxiib dankaa ma dhacdo qofna ma rabo qof noocaasi oo kale ah cidna xiriir kula samaynayso ma jirto waayo waqtiga waxaad ku luminaysaa qofkan noloshaada oo dhan waxay u soo gooday qofkan naftaada waqtiga aad gelin lahayd waxay u soo gooday qofkan cidna ma rabto qof la heli karo qof aanan waqti lagu bixinaynin qof dadaal aan kaaga baahnayn qodobka saddexaad waxa uu yahay si dadban isu muuji qofkan inaad jeceshahay baraha social media qofkan uu ka arki karo ku soo madhig waxqabadkaaga daily life-kaaga gulaha yar aad xaqiijisay tani waxay keenaysaa in qofkani maskaxdaad ka qabsato kuu malaya qof helidiisa ay adag tahay qof tartan loogu jiro waayo cid kasta way rabtaa qofka tartanka loogu jiro xitaa adiga qofkani taasi waxay ku kalifaysaa inuu kaa dabacararo kuu malaya qof muhiim ah laakiin waa tahay ogow kaliya laguma malaynayo haddii aad noqon karid qof caan ah waa caadi taasna waxay keenaysaa in lagaa daba dhaco oo lagaa dabacararo qof kastana uu ku jeclaado caannimada faa'iido kale way leedahay haddii aad ganacsi furitid waa ku faa'iidaysaa si kalena qofka aad jeceshahay uu ku jeclaanayaa weliba uu ku ilaalinaya oo ku dhowrayaa qofkani aad jeceshahay qaab sheekaha ula wadaag waxaad qabanayso hamigaaga halka uu gaarsiisan yahay iyo siday u adag tahay inaad xaqiijiso qofkani waxaad tustaa inaad tahay qof hansare leh qof meel u socda qof wixiisu ay u cad yihiin qofkani wuu ku qadarin doonaa wuxuuna kaa dhex arki doonaa riyooyinkiisa saaxiib noloshu way gaaban tahay adduunkani laguma keenin in qof bini'aadam kula mida daba cararto u murugooto
qofkaasi aad waqti ku bixisid helidiisa waqtigaaga intiisa badan aad ka fikirto sidaad qofkaasi qalbigiisa u kasban lahayd ogowna dhammoo qofkan aad ka fikirto wuxuu qabsanayaa maskaxdaada waxaana kugu badanaya rabitaanka in qofkaasi aad message u dirto ama la hadasho xitaa haddii aad isku dhacsantihiin dabacararka badan bini'aadamku way nacaan haddii aad dabacararto bini'aadamku way kaasii fogaadaan waayo waxay isu arkayaan inay muhiim yihiin isan kuu qalmin adiga jooji dabacararka qofkani kula midka naftaada dhis oo sare u qaad kadib ay ku hoos imaan doonaan adiga ayay waqti kugu bixin doonaan siday ku heli lahaayeen intaasi un samee waad guulaysan doontaa saaxiib intaas ayaan ku soo koobayaa muuqaalkan haddii aad dhammaysatay halkan aad soo gaartay fadlan ha ilaabin in muuqaalka la garayso kanaalkana ku soo bir wax badan ayaa ka faa'iidi doontaa waa mahadsan tahay